صباح wanaagsan idinkiinba akhyaarta hawada inagala socotaa waa axad 11 Diseembar sanada 2022 saacadda Afrikada barina haatan waxa ay tilmaamaysaa 7 aroornimo oo gow ah qodobada idaacaddeena subaxnimo aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah mudaharaadyo looga soo horjeedo galgalidda iyo caburinta Iiraan ee dibadbaxayaasha oo ka dhacay Talyaaniga qaar ka mid ah ururada shaqaalaha ee UK oo dalbaday banaanbaxyo shaqo joojin ah haddaba saameyn intee leedahay shaqo joojintan ku yeelanaysaa dhaqaalaha UK horta saameyn ku yeelanayaan oo inta aga caafimaadka saarkiisa waa laga hadlaya laakiin dhibaatada kale dhinaca kale hadhowto waddanku dalmarkii ma wada saameynayaan lagu baxsanaya marka laga eego shaqada ay soconaysaa waddankii baan maalintii wada saameynayay madaxweynaha dalka Kenya oo booqasho naadir ah ku jooga dalka Eritrea gabar uu hayay kansarka aan la daweyn karin oo ka caafimaaday markii la siiyay daawo cusub oo loo soo saaray xanuunka iyo waxbaradii kulamadii adduunka ee xalay ee aan waxba la iskula harin qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Saciid Xasan Anteeno waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdulqaadir Yuusuf Cali marka hore se dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka iyo isla soo saaraha barnaamijkeena Saciid Xasan Anteeno finid Cabdulqaadir dadka dalka Morocco ayaa u dabaaldegaya guushii ay ka gaareen ciyaaraha kubadda cagta ee koobka adduunka taasi ay soo yimaadeen xulka qaranka Portugal iyagoo u soo baxay heerka afardhamaadka waddankani ayaa kii ugu horeeyey ee Afrikaan ah carabna ah ee u soo baxa afardhamaadka koobka adduunka Morocco ayaa wajihi doonta kooxda hadda haysata horyaalka koobka adduunka ee Faransiiska toddobaadka soo socda kumanaan ka mid ah taageerayaasha Morocco ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Paris si qaarkood ay isku dhaceen booliiska waxaana lagu kala eriyey sida dadka Ingiriiska madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa sheegay in dad gaaraya 1 milyan iyo bar ay koronto la'aan ku noqdeen gobolka koonfurta Odessa markii ay weerareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka waxa uu sheegay in 10 diyaaradood iyo kuwa aan duuliyaha lahayn oo ay Iiraan samaysay la soo diray balse 5 kale ay la dhaceen dadkaalo kaabiyaasha tamarta korontada daweyn horudhaca oo ku lug leh unugyada midisideed lagu deeqay waxna laga bedelay ayaa ka caawiyey gabar Ingiriis ah inay kasoo kabato nooc naadir ah oo kansarka dhiigga ah daweynta oo ka dhacday isbitaal ku yaalla magaalada London ayaa burburisay unugyo kansar ah iyadoo la ilaalinayo unugyada kale ee caafimaadka qaba dhakhaatiirtu ayaa waxay rajeynayaan horumarka dheeraadka siini doono daweynta noocyada kale ee cudurkani maxkamad ku taal magaalada New York oo cariga Maraykanka ayaa nin dhashay dalka Mauritania kusoo ogtay dambi argagixisnimo oo la xiriirinayo 3 weerar oo ka dhan ah galbeedka oo ka dhacay dalka Mali sanadkii 2015 weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay 38 qof oo mid ka mid ah uu ahaa ruux jinsiyadiisu ay ahayd Maraykan ugu dambeyn dadka u dhaqaaqa deegaanka oo mudaharaad ka dhigay magaalada Montreal ee dalka Canada ayaa ku eedeeyey madaxda shirka qaramada midoobay ee halkaas ka socda oo lagu baaqayo badqabka iyo masiirka noolaha ee halkaas ka dhacaya inuu yahay mid aan hadaf lahayn dadbaxayaasha oo kale kooxaha dadka asaliga ah ee adduunka oo idin ayaa raba in xog badan laga soo dejiyo weerarkooda ay ka dhaxleen dadkii ay kasoo farcameen intaa waxayna ugu dhan warkii ah dib ugu celiyo Cabdulqaadir iyo qeybaha kale ee barnaamijka Cabdulqaadir mahadsanid Saciid aanu ku bilownay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga ayaa waxaa ka dhacay banaanbax lagu horjeedo xukunka dilka iyo xalka dowladda Iiraan ku hayso dadka ka soo horjeeda dowladda ee ka qayb qaadanaya banaanbaxyada oo ardaydu jaamacadaha ugu horeeya waxaa ka qayb galay dad ku dhashay waddankaasi Talyaaniga iyo jaaliyadda Iiraan ee dalkaasi degan haddaba banaanbaxaasi sida uu dhacay iyo fariinta uu gudbinayay waxaanu ka wareysanay Shukri Saciid oo ah wariye degan dalka Talyaaniga aadan saalimiin ayaa ugu horreyn weydiiyey ujeedada banaanbaxaasi banaanbaxa wuxuu ahaa saad u sheegtayba banaanbax lagu taageerayo shacbiga Iiraan dumarka dhalinyarada iyo ardayda iyo shacbiga dhammaan reer Iiraan oo dhan waa lagu taageerayay waxaa programkan soo qabanqaabiyey xisbi weyn oo Partito Radicale la yiraahdo nin caan adduunka ka ah oo geeriyooday oo Marco Pannella la yiraahdo oo soo aasaasay oo xaquuqal insaanka iyo xaquuq xuratul qawlka iyo xaquuqda bini'aadamka oo dhan u dagaalama waa xisbigaas
u badan oo ayaguna waddankan talyaaniga ku nool. marka maxay diidanayaan maxay ahayd fariinta ugu weyn ee barnaamijkaasi uu dirayay fariinta ugu weyn waxay ahayd in oo maaragtay ayatullahayaasha oo ku amar ku taagleynaya xuquuqal insaanka oo xadgudubka bini'aadanimada ka dhana samaynaya oo dilka samaynaya oo xabsiga ku samaynaya shacbiga iiraan oo xorriyadoonka oo dimuqraasidoonka oo nabadda sidii nabadda ah u banaanbaxahaya sida cusurnimada oo loola dhaqmahayo oo loo caburinayo oo qaarkii ugu horreeyana oo loo dilay qaar kalena hadda in la deldelo ay u diyaarsan yihiin oon ilmo iyo dumar iyo waayeel midna loo qaabayeelay baa la taageeraya waxaana islooganada ku qornaa oo la taageeraya dimuqraatsinimada xorriyadda shukriyay marka barnaamijku talyaaniga ayuu ka dhacay rooma ayuu ka dhacay marka iiraan oo kale barnaamij noocaasa fariintaasi maxay ka tari kartaa bay kula tahay wax weyn bay ka tari kartaa sabab waxaana lagu ballamay sanadka soo socda in barnaamijkan oo kale lagu sameeyo iiraan lagu sameeyo teheraan uu ka dhaco ugu dambayntii barnaamijkan marka laga yimaado ay soo qabanqaabiyeen ururada xuquuqul insaanka iyo xisbigaasi aad sheegtay radicaalka dhinaca dowladda talyaaniga waa maxay mowqifkeeda ku aadan iyaga siyaasadan iiraan ay kaga soo horjeedo barnaamijyada oo haatana ay bilowday inay dil ku fadhiiso dadka iyagu dowladda kasoo horjeeda horta barnaamijka dad dowladda ka socda xataa nin oo wasiir ku-xigeen oo maaragtay secretary of state oo wasaaradda arrimaha dibadda ka socdaa joogay oo asaga laftirkiisa xisbiga biu europa more europa la yidhaahdo ayaa laftirkooda radikaalaha ah ka mid ah xildhibaanaha joogay kuwa xogayaha xisbiga laftirkiisa waa nin xildhibaan hore oo baarlamaanka talyaaniga iyo kan eu-ga ka soo noqday dad badan oo mas-uuliyiina joogay iyo mutacalimiina waxa talyaanigana Giorgia Meloni gabadha premierka talyaanigu shalay waxay communication press release soo saartay oo ay ku cambaaraynayso abuseka iyo xadgudubka lagu wado shacbiga iiraan taasi waxay ahayd shukri saciid oo ah wariye degan dalka talyaaniga waxay u waramaysay aadan saamile markana wararkii afrika aan eegna madaxweynaha kenya william ruto ayaa safar shaqaha ku tagay dalka eritrea maahan waxa inta badan dhaca in madaxda dalalkani isdhaafsadaan safarro shaqo laakiin tani ayaa loo arkaa door muhiim ah oo qaadanayso dowladda kenya haddaba falanqeeyo siyaasadeed cabdulqaadir axmed oo ku sugan dalka jarmalka ayaa uga warramay wariye saciid xasan anteeno ujeedada iyo saameynta ka dhalan karta sida labada xukuumadood ay sheegeen marka waxaa safar loo baahan yahay oo labada xukuumadood keliya maslaxadooda aan ahayn laakiin mandaqada waddanka afrika lagu rabo ama wadamada ku dhahoobay urur sidood rasmiga ka dhexeeya dhinaca nabadda laftooda saameyn ugu ku yeelan doonaa maadaama dalka etoobiya dagaalo ka socda weerarkaya marka lahayd kenyana ay ka mid yahay wadamada la xilsaaray in arrimaha xagga nabadda iyo kuxansiinta dhinacyada xududku ka dhaxayso dowladda kenya ay ka mid tahay marka arrimahaasoo dhan ayuu ku saabsan yahay socodkan hadda madaxweyne ruuto ku tagay dalka eritrea marka kuleediyaan xiriirka dhexeeya eritrea iyo kenya muddo dheer laga soo bilaabo kusugan boqol iyo sagaal iyo sideetan ilaa mar dhow intii u dhexaysa waxay ahayd xiriir aan aad u wanaagsanayn urur goboleedka ugaxa mar baa laga saaray dowladda eritrea muddo ay ka maqnayd marka wixii ka dambeeyey isbedelka ka dhacay dalka etoobiya xaaladahooda soo habaabaya marba marka ka dambeyso isbedel runtii aan la firin baa dalka etoobiya ka dhacay markii abiy axmed oo xukunka yimid waxaa intaa ka dambeeyey oo labada dowladood isu soo dhawaadeen oo caqabada isku warataraya iyo etoobiya ay meesha ka baxday waxaa soo hawaabay sidoo kale xiriirkii dowladda eritrea oo ka maqnay saaxadda siyaasadda oo wadamada ubad ay ugu soo noqotay tartiib tartiib lagu soo hawaabay xiriirkii wadamada ka dhexeeyey marka hadda waxaa la dhihi karaa meeshii ugu fiicnayd inuu soo gaaray wadada madaxweynihii waddanka kenya oo ah waddan xagga dhaqaalaha wadamada ugu horeeya geeska afrika oo hadda jooga eritrea xaggeeda marka inay ka baxday meesha
والشعب أما تقر اللغة اللي دولة ورد الناس يتبحثوا في رسمي دولة إريتريا مركان ودولة جيش أفريقيا لمان حرف ودي أسوأ النقطة مركان مهمة من أقول لك الكلام إريتريا سبب لو بس الدين مهمة أو يلا نتعاون على حاجة نقالها أي حاجة في الإنترنت إريتريا فيها نوعين عشان تخرج الصحابة عن بضع عشرة مرة مهم نقالها الدين وكل كده قالوا وطن لكن هو دولة جيش أفريقيا وطن حاجة نقالها أبوه الرئية حاجة ورشدها أبوه الرئية يكون لكيه وكذا لكن لا يعلم عن كده فأولي سنوات كده كما جزء كما خاوة ويكتب نفسه حق النبات دي تسعة سنوات يسوي يتبع أو شيء يجلس أفريقيا ما لا بدنا سنوات ولكن يسوي كلا يثبت وحكم أو خلاف نفسه حق منطقة ولا ضوء ولا بحمري أرمها صدر مركب مالها إن خبص أروح لها خطوة بهنا يوم نكون دونان مركب كم أول كم مركب هي فقط أنا بحوين الروسو وأهم من أول كل من بقدر يجيش عبد القادر أحمد وكسران بلخ جرمل كأول رميين ويسعيد حسن أنكرا ويحاسيها وقبل من بلخ عثامة waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba وتقي ururada shaqaalaha hay'ado dhowr ah ee dalka UK ayaa dalbaday banaanbaxyo shaqo-joojin ah oo ay ku dalbanayaan in xuquuqdooda shaqada sare loo qaado sida garaadka iyo suuqyada shaqaalaha hay'adda tareenada ayaa sanadkan sameysay shaqo-joojin dhowr ah welina sii dalbanaya taas oo saameyn weyn ku yeelatay isu socodka dalka magaalada London iyo gobollada UK shaqo-joojintaas la mid ah ayaa waxaa bishan December dalbaday adeegga boostada ee Royal Mail hay'adda socdaalka UK iyo hay'adda caafimaadka ee NHS haddaba shaqo-joojinta noocan oo kale ah oo shaqaale sidaasi u badanna ay ku sameynayaan UK ayaa ah mid saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha dalka abaabusna ku ah xisbiga talada haya ee UK haddaba waxaan arrintaasi ka wareysanay cabdi cumar boode oo ka faalooda arrimaha UK waxa uu wareegay wariyahii BBC-da أحمد في واحد فوق واحد وحوي ومساحتي مقابلين iyo intii la kordhin lahaa baa la isku haystaa waxaana keenay haway maraysakan aayuuday yani toddobaadkan ruuska iyo ukraine bilowday marka taa aad keentay meesbiya iyo tamartii iminka dadkii kamida intaantii gaaskii iyo noolkii korotay waayo halkaa qoys badan baa ka qaaday marka lacagta loo kordhinayaa caadi ahaanta waxaa la kordhiyaa in u dhaxaysa laba ilaa boqolkiiba laakiin iminka meelaha qaarkood waxaba sida hay'adaha caafimaadka ruxantiida hay'adaha caafimaadka iyo boqolkiiba afartan toddoba ayaa loo kordhiyey waxay ka koobayeen waa tan qoladan iminka tareenada caafimaadkiga boqolkiiba sideed ayaa laba sano soo socda loo kordhinayaa marka laakiin taasi uma dhiganto balki iminka wuxuu marayaa waxa uu kor u kacay waa 11 waxaa October marka uma dhiganto marka qooyinkan hogaamiya kaasitooyinka waxay leeyihiin dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan shaqaalihii dowladda shaqaalihii caafimaadka cid walba waxa ay maanta soo wajaheen xitaa waxay ka doonayaan xagga dowladda waxaa ka imanaya in wax laga bedelo xaaladaha weliba heshiisyadan shaqada iyo shaqaalaha iyo doonaya wax laga bedelo gaar ahaan weliba qoloyinka boosta waxaana waajisay dowladdu inay rabto inay bal wax ka qabato oo ururada shaqaaluhuna ay doonayaan in wax laga bedelaan xagga xeerarka shaqada oo kale sharciyadooda loo wanaajiyo marka isfahamka dowladda iyo dhammaan hay-adaha si kala duwan mudaharaadka ku baaqay haddii uu maraya hadda runtii waxaa moodaa meel adag marayaa welina wuu sii socon doonaa sida la rajaynayo meel adag inuu marayaa iminka welibana waxay leedahay weliba ra-iisul wasaare wuxuu yidhi waxaan doonaynaa oo lagu qabto shuruuc lasoo saaro oo la yidhahdo adeegyadu waa inay socdaan weliba xeer laysla cayimay oo laleeyahay xeerkaa ma dhaafi karaan xitaa haddii ay ka tiraameen walaal nabada hay'adaha caafimaadka oo kaleda marka ay shaqo joojin sameeyaan
haddana qolooyinka emergency-go kale iyo qaar baa ka shaqeeya tareenadoo kale way socdaan laakiin wax yar baa socda markaa dadkiiba ciriiri xaggii mataqaanaa badqabkii ammaankiiba ayagana ciriiri gelaysa taasoo dhan marka ugu weyn waxa weeyaan weli waxay doonayaan in lasii hagaajiyo xorriyadooda hawlgalka waxaan buuxsirka loo yaqaano ayaa iyaguna taas iyaguna doodan ka taagan haddii aan si gaara isugu istaagno tareenada oo kale su socodka dadka iyo dhaqaalaha guud ahaan UK gaar ahaan magaalada London muhiim ayuu yihiin sidoo kale hay'adda caafimaadka oo kale hadda ayaaba laga cabanaya oo laleeyahay waqtiga sugitaanka haddii qofku uu u baahdo gargaar degdeg ama ambalaas oo kaleeto saacado badan ayuu qaataa haddii isbitaalka uu tago saacado badan ayuu qaataa marka xaaladahaasi sidaday usii saameyn ugu yeelanaya guud ahaan dhaqaalaha iyo nolosha dadka horta saameyn ku yeelanayaan oo inta agaa caafimaadka saasito waa laga cabanaya laakiin dhibaatada kale dhinaca kale haddato waddanku dal keliyana wada saameynayaan lagu baxsanaya marka laga eego shaqada ay soconaysaa waddankii baana maalin kaliya wada saameynaya haddii la eego taariikhda banaanbaxyada ama shaqa joojinta UK wixii ugu badnaa waxay ahaayeen sanadkii iyo sideetanayadii waxaa laga yaaba iminka isku socodka koonfurta waddanka for example hadan koonfur bari southeast oo kale London yidhahaa haddii marka ay labadaasi gasho shaqa joojin ina didwalbeedka way soconayaan marka laakiin waagi hore saamayn maalinteeda taana dhaqan kala baxsan laakiin ta kale waxa weeyaan absolutely iminka weliba waxaa soo socda way socon doontaa waayo iminka waxa weeyaan waa kalkaaliyaasha caafimaadka ayaynu ka hadlaynaa iyo qolowii ambalaasta weli suuriyada sanadkii dhakhaatiirtii yaryaraada cusbaa weli iyaguna jeri welibay samayn doonaan macallimiintii jeri welibay iyaguna dhawayn doonaan marka way soo socotaa waxaana keenaya waxa weeye waa sawir balalkan xadaafka ee gaaray boqolkiiba 11 ayaa aad ah cabdi cumar boobe oo ka faallooda arrimaha UK oo u warramayay waryahabuisiga aadan saalixiin kaasi ahaa waxay noo soo socota warbixin ku saabsan dawo cusub oo loo soo saaray kansarka balse marka hore waxaan u eegaynaa ciyaarihii xalay ee adduunka dalkaasi qatar waxay haatan soo gaareen heerka semifinalka ama afartamaadka xalay waxaa qabsoomay 2 kulan oo aad u xiiso badnaa kulanka koowaad ayaa waxaa isaga horgeyey dalalka Morocco iyo Portugal waxaana guulaystay dalka Morocco halka kulanka labaad uu dhex maray dalalka Faransiiska iyo Ingiriiska halka guusha ay halkaas ku raacday Faransiiska Morocco iyo Faransiiska ayaa labadii kooxood ugu dambeeyey oo u gudbay heerka afartamaadka haddaba falanqeeyaha ciyaaraha geysana ayaa bal dib u jaleecaya ciyaarihii xalay iyo sida kooxuhu u kala aqriyeen markii Portugal iyada muuqatay Portugal inta badan ciyaartoy fiican oo tayar ay haysteen oo waxay filayeen inay Morocco ka adkaan karaan aysan la gaari doonin meeshii ay la gaartay Spain kahor ay ka adkaan karaan laakiin taas uma suurtagelin oo waxaan la soconaa Morocco inay tahay koox aad u abaabulan difaaceedana aad u fiican khaasatan dhexdeedana aad u adag tahay runtiina markii la dhaho Morocco waxaa keliya ku ammaanaysa xitaa ma haystaan ciyaartoy magac leh oo sida Ronaldo Neymar ciyaartoygan kale Messi laakiin waxa waa koox isaysato oo dhammaantood wada shaqaynaysa marka koox ahaan ayay u shaqo galaan heerkanna waxay kusoo gaareen inay koox yihiin taariikhda ay dhigeenna ay tahay waddanka ugu horreeya oo Afrika oo afarka ugu dambeyn soo gaara ayay noqdeen marka Morocco aad iyo aad ayay u amaanan tahay oo waxaan la soconaa inay matalaysay Afrika iyo Carabta iyo Islaamka oo dhan inay matalaysay is arki doonaan waata diisan taas waxay ahayd ciyaartii hore ciyaarta dambe waxaa dhacday aad u xiiso badneed oo ay isku hardiyeen xooga dalalka Faransiiska iyo Ingiriiska ciyaartaas baa ka waran iyaga sidaan la socon ciyaartaas Ingiriiska waxaa umalaysaa inay aad ugu baqaayeen ciyaaryahanka Kylian Mbappe laakiin haa waxaa umalaysaa Kylian Walker inuu meel ka soo baxay oo waxaa la soconaa nambarka labaad iyo aad u dheereen sidii markuu u dheeraado weerar oo ka qayb qaata laakiin hawada weerarka ma qayb qaadanin oo ninkaan ayuu il gooni ku ah Faransiiskana waxaa umalaysaa in gool jibay oo dhacda ka dheli inuu gool banaanka u ka tagtay oo u dheli kadibna Ingiriiska ay bilaabeen inay soo gudaan ay culays xoogna saaraan kadibna saako qalab ugu galay goolkulaad loo dhiga xaarikiina u
soo galiyo laakiin si dambe uu la waayey maxaa keenay in kiin uu gato warbarinta goorada dambe horta waxaan la soconaa intaan goorada hore loo dhigin inuu 19 goolkulaad hore loogu dhigin 3 kubada oo kale laakiin tan markii loo dhigin waxaan la soconaa goolahayaha Francisco Lore inuu fadna ku dhiir si qabiil oo ka tabiya marka laba qof oo istaqiimad laakiin kubad fiican oo xoog socda ayuu ka badiyay inta badan sidoo kale inuu jiilay ayaa loo baleynaa laakiin sida aan la soconaba ciyaaraha ka waxaa rigorooyinka inay maxaasi ka timid oo ciyaartooy badan ay qaldeen oo waxaa la soconaa Messi laftiisa laba mar hore inuu qalday goolkulaad lagu reebay Spain goolkulaad lagu reebay Brazil oo loo baleynayo kooxdina hadda goolkulaad lagu reebay marka rigorooyinka waxaa markay soo gaarto in ciyaartooyda cabsi ay la soo darfayso saas daraadeedna oo qalab ay badan tahay marka harikay lagama filayn waa tahay ugu dambeyntii haysane haatan halkee loo jeesan doonaa waxaa isku soo haray 4 kooxood waxaa la joogaa ciyaarta wareega semifinalka ama afardhamaadka maxaa la filayaa horta sida aan la soconna ciyaaraha adduunka intii socdeen waxaa la filayay wadamo badan ayaa loo saadaalinaya oo la dhahayay wadamo badan ayaa qaadayso Argentina qaaday Brazil qaaday wixii hadda Faransiiska ka soo haray sida Faransiiskana waxay la ciyaari doonaan Morocco waxaa la soconaa Faransiiska Morocco isaqaanin oo Faransiiska waa wadamadii oo Morocco waxay ka mid tahay wadamadii gumaysan jiray ayay ka mid tahay ciyaartooyda inta badanna way shaqaanin laakiin Morocco Oromaa oo waxaa ugu sirmay Spain aa ku sirantay oo ayadoo boqolkiiba 37 kubadda haysata ayaa goolkulaad looga adkaaday oo isku ciyaartooy aad u fiican boqolkiiba 73 ayuu kubadda haystay ayaa laga adkaaday marka ayadu Morocco dib kuma hayso kubadda inta la haysto laakiin ayadu dib waxa ugu weyn xitaa inay difaacida xitaa weerarada ay goolka dhagaan si ay loo imaanayaan oo kushaas ay ku diideen marka kale Croatia waxaa la soconay in la filayo inay ka adkaan doonto kooxdii Brazil laakiin maysan dhicin oo ciyaar ayay la soo baxeen laakiin Croatia waxaa qabaa inay Morocco ka dheeroonta oo ciyaartooyda dhacda u joogto Modric Brazil iyo Kovacic inay ciyaartooy aad u fiican waa aragnimo waxaana la soconaa 2018 inay final bayna Faransiiska ay la tageen laakiin 8 ciyaartooy oo cusub ayaa ku jirto kooxda Croatia waana wadan canta aad iyo aad magac ugu leh marka waxaan qabaa in Croatia iyo Argentina ciyaar xoog ay dhex marayso haysane iyo saciid waa mahadsan yihiin waxay nala socodsiinayeen ciyaarihii xalay iyo dabadii intaasi ka dhacday qaar ka mid ah dhegeystayaashana Facebook ayaa ra'yigooda kasoo gudbiyay qodobkaasi waxaana ka mid ah Axmed Maxamed oo jooga magaalada Dhagaxbuur waxa uu leeyahay koobka adduunka ee gabagabada maraya xilli ay xalay Morocco gacday wadanka Portugal runtii waan ku faraxsanahay ayuu leeyahay guusha taariikhiga ee xalay oo gaaray xilka koobka waxaana rajeynaya inay hanan doonaan koobka adduunka Axmed iyo dhegeystayaasha kale oo Facebook ra'yigooda kasoo dhiibanaya waa ay mahadsan yihiin markana waxaan uga doonaa kuwaas ka duwan gabar yar oo kansarka laga bogsan karin la baarabacaysay ayaa jirkeeda laga siiyey markii ugu horreysay kadib markii lagula tacaalay dawo dhammaan dawoomadii kale alisa way fashilmeen hase yeeshee nasiib wanaag dawada cusub iyo haddaba saciid xasan anteno oo istuudiyaha igula soo dhiiray warbixintaasi soo ah saciid marka hore inoo faahfaahin dawada cusub ee alisa u baahan waa tahay cabdiqaadir gabadan yar waxaa ku dhacay cudurka kansarka nooca ku dhaca marka jidkeeda ayaa laga siiyey markii ugu horeysay oo waxaa la isticmaalay nooc cusub oo daweyn marka dhammaan daweynta kale ee gabadha yar alisa marka kansarka nooca jidkeeda ku dhaca way dishay marka dhakhaatiirta isbitaalka la yidhaahdo eeg hormone institute ayaa waxay isticmaaleen hanaan laga bedelayo asalka unuga si taas oo u qabato daweyn wanaagsan ayna u dhisto unugyo nool oo cusub marka 6 bilood kadib qofbaa marka bilowaan kara kansarka inuu weli ku jiro gabadha jidkeeda in kale laakiin halis hadda way noqon kartaa oo ama khatarta ahayd inay dhimatana yani laga badbaadi oo haatan xoogaa nafis ayay heshay
سعيد بركة نوع كسبك جبل بقى نوعه والله وقوع هاي قدر النوع كبع جبل يكون جاري لا يجي ولا marka waxa la isku dayay waxa weeyaan inta dhaqaatiirta ku dadaalayay isbitaalka geedka Ormo in ay sameeyaan biyo cusub kuwa qabana ay jiraan marka waxay isticmaalayaan nooc cusub oo biology ah oo ay adeegsanayeen taas waxay keentay in guuleystaan marka si dhaca taas waxay keentay gabadha sida badanaa dhacdo oo dhaqaatiirta marka qofku uu ku dhaco safa waxay sheegaan biyaca inta badanna xayimaada kuwa qofka uu ku dhimanayo haweenkiisa marka gabadha waqtigeeda aad u yaraa sida ay sheegaysa hooyadeed waxay leedahay gabadheyda dhalashadeeda waxay ku adeegsatay qaban doonaa waxay leedahay noocan kubaca dibadda soo badanaya kubaca marka waa xaqiiqan la falka ay isticmaalaan waa ay soo badanayaan nooc kubaca oo jira jirka kuwaas ku difaaca sidoo kalena bacsida markii loo galo laakiin kan uu ka adkaaday gabadhii marka isbitaalka loo dhigay isbitaalkii uu ku guuleystay inuu qaarkood ku wanaagsan ku arko سعيد ومانسان يحي بعد سواحنا هو سو صار اسمه سعيد اللي هو قاسي نغبر وحنا وقلنا بعد البرنامج اللي قاسي سيدا